sida dawladdu ay tiri shirkii macnaha raggaasa burburi ay tiri adaa garsoore ah adaa meeshii fadhiyay marka madaxweyne adaa ummadda ka sugaysa inaad sheegto shirkii waa taas waa lagu kala tagay iyo shirkii caadi oo noogu dhamaaday adaa laga rabaa madaxweyne shirkii wixii uu ku dhamaaday iyo sidoo ku dhamaaday arintaas waa nagu soo laalaabatay waan dhig marar badan runtii dadka sida loogu sheegayna waxyaabaha adigee tani aad isku diidanaydeen oo shirka waliba dhaawac weyn u geystay sida la sheegay maxaa kamid aha aniga iyo dani waxaan u ogolayn ajadaan lama geli karo lama geli karo adigu ma taageersan tahay mise ama ka soo horjeeda in madaxweyne maxamed Abdullaahi Farmaajo awoodiisa siyaasadeed iyo la cadeeyo maadaama uu la leeyahay waa musharax ma taas ma aaminsan tahay waxna ma dhimi karo waxna ma dheersan haduu awoodiisa dhimi karo macnaheedu waxa weeye waxaad moodaa in laba aragti laga kala qabo oo la leeyahay xilligaas oo dhaxdhaxaad ah laakiin xilligan Farmaajo isu dhiibay oo wixii uu yiraahdo umbo maqlaa ma isu aragtaa noocaas madaxweyne Abdullaahi Farmaajo hadii uu murashaxada waa un sheeg joogtaa uu murashax noqdo banaanka soo istaago murashaxiintu iga midii in la yiraahdo bal si doorasho hal qof iyo hal cod loo gaaro inuu baarlamaanku extension ama muddo kororsi in uu sameeyo arrimahaasi hadii ay dhacaan ma taageeraysaa waxaan maqlaa markasta midowga musharaxiinta iyo maaragtay senatarada iyo xildhibaanada ka soo jeeda galmudug inta badan shirar bay kula qaataan ayagoo saluugsan siyaasadda adigu ay u arkaan inay macnaha dhinacan dawladda ay aad u rarantahay u arkaan mar walbana waan maqlaa iyagoo dhahaya warnimayahow qoorqoor meeshii uu noo doodi lahaa ayaa Axmed Madoobe ayaa dani ayaa noo doodaya coalition bay la sameysteen adoo taagan ay isbahaysi la sameysteen arinta noocaas oo kala soo foolxumo kuma ahan adigoo madaxweynihii dawlad goboleedka galmudug dadkii iyo madaxdii iyo kulligood in ay ku biiraan isbahaysi in ay ku biiraan taas see kugu dhadhamaysa horta adiga sidaa rabto u dhig dadkan dad siyaasiyiin ah Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier